بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما هو السلام يا بشوين تصوماليات رجية دمر ميلا كسجنتين بقى وحنكو السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا وعبد السلام جتلمان وطنيقة بريبرعو wadaniga Soomaaliyeed ma sha Allah soo dhawaada tabcan iyo waxa kale idinku aad ugu dari doontaanba insha Allah taala waxaan caawa rabaa inaan bartan horta la socodsiiyo ummadda Soomaaliyeed hadaan nahay nabad iyo nolol iyo taageerayaasha xukuumadda iyo qaranka Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed soo dhawaada Maxamed Cusmaan geesi dhalay shukran Allah ya ciisag soo dhawaada waxa horta waynu arkaynay inta aan horta safarka madaxweynaha iyo guulaha iyo gobonimada iyo waxyaabaha ka soo socda iyo diyaaradaha Soomaaliya loogu deeqay ee dawladda Turkiga ma sha Allah iyo Qatar ay ugu deeqday iyo wasiiradeena maaliyadda iyo wasiirada duulista hawada oo tabcan iyo wasiirka xogeenka gaashaandhigga oo iyaguna ka degay caasimadda Nairobi iyo dalka horumarkiisaba inta aanan hore u garin iyo hubka cunaqabateynta hubka ee tabcan Soomaaliya laga qaadayo ma sha Allah waxaan rabaa inaan in yar dul istaago maamul goboleedada oo isku shubay meesha la yiraahdo Baydhabo. horta nimankii maamul goboleedada ee cadawga u shaqeyn jiray dhamaantood bay isku soo duduubo waxay ka degeen oo ku yaaceen shirkan Baydhabo Soomaali waxba ha nixina waxbana dabcan ha ka didina oo la yaabina hatta ka hor waxay ku shireen meesha la kismay maxaa soo baxay balki ismaayi bari aadino hadda malaa sanadkii dhamaaday bay heedee 2017 ma sheegi kartaan wax ka soo baxay oo aan ka ahayn shimbirayo oo hees wanaagsan qaado kanana waa kiyo kale waa rafadkoodii ugu dambeeyay ciyaalku had iyo jeer marka ay ciyaalka hooyadooda istusa hooye waxana sameynaya hooye wax noocaas waa arrimaha noocaas nimankan maamul goboleedku waa maalayaan waana ciyaar oo kale madaxweynaha horumar aada dalka horumar buu socdaa guriga gobonimo lagu socdaa iyaguna marba Baydhabo ku shirayna waa marba meel istusa hortan maamul goboleedada iyo shirka Baydhabo waa rafadkii u dambeeyay albaab kasta oo laga soo xiray siyaasad baa timid dhahdan nabad iyo nolol iyo xukuumad Soomaaliyeed hore u soconaysa tareenkana uu dhaqaaqa dabeetana gibgibtoodii iyo swaalwaalkoodii ay waxay leedahay meesha la Baydhabo wax allaale wax ka soo baxaya wallahi baanu jirin wax allaale wax meesha ka soo baxaya oo aan ka ahayn kii Kismaayo ee ay intay halkaas ugu tageen Axmed Madoobe orada reer walad ka bidiyay iska fadhiista Axmed Madoobe iska fadhiiso Kismaayo iska joog Cabdiwali kaasoo Kismaayo iska joog Sharif Sakiino aduguna bartaadan iska fadhiya Baydhabo dalkan hore u maraya labana noo geesiina baa yimi dalkuna hore u soconaya taas waa qodob wuxuu kuma tigaalayo oo dadkay rabaan walaalayaal inay waalaan waxaan ugu horreysiinaya meesha la yiraahdo Berbera oo wadaniin Soomaaliyeed horta anigu nin kastoo qabiiliya annaga ka qolo adag wadaniinta Soomaaliyeed cir iyo dhulba way ka soo warmaan haddaan cabsanaan jirtay maanahayna tabcan waxa cid u joojin kartaa walaal ma jirto oo wareersiino tareenkan uu soconaya mahmaada hadii jeer waan soo qaataayo waxa dhahdaa abi school meel lama wada joogo warna isku maseekana waxa Berbera ka dhacaya iyo waxa Hargeysa ka dhacaya waxa Burco ka dhacaya wallahi anoo halka fadhiyo Faransiis oo gurigayga jooga ayaan step by step ayaan la socdaa way masta macaaqilkiiba Cabdixaafid aad baan ku salaamaya dhamaantiinba guriga gobonimo waxa ka soo degay oo habeen dhaweed waxa ka soo degay meesha la yiraahdo airportkii Berbera Russia برجي دود الصومالي كرسي عيدن باك سودجي ملا أمريكاني وحيوان نوع عصبي هاي واحد لجوريتشي سيلك واحد هذا أما لغة إنجليش تفنس واحد نوع عصبي لجوريتشي يجو كبا قناية إلا إن صحيح دولة الصومالي كستبت دولة الصومالية هي كمسؤولة يجو كبا قناية أو إني براد ماركتين ayaa ciidamo yar Mareykankuna tabcan dawladda Mareykanku way shaqo shaqaynaysaa hadda Imaaraadka iyaga dabada ka wada way kula jirtaan
kuma dhacaan saldhig baanu ka samaynaynaa bay yidhahdeen kama samayn karaan waxbaanu qabanaynaa waa aba yarar bay ka taageen oo maala yacni habeenkii baanay kusoo degaan iyagoo black marketaba shaqaalaha meesha jooga ayaa noo soo sheegay ee jooga meesha la yidhaahdo dekeda berbera walaal kuwa xanuunsanaya ma joojiye soo dhawow macaamiishada sharafta le waa macaamiishada haddana macaamiishada maxay daba dhigay waa ku qoslaawn waayo haddaan meel aan ka soo galaba walaal warbixin wanaagsan baan idin waday soo dhawaada billahi calaykum laakiinse marka qaar injectionkaan la dhacayo injectionku waxa weeyana wax yihiin aad sheegtid waayo waa dad xanuunsanaya fikir ma dhiiban karaan aragtidooda iyo maskaxooda ma adeegsadaan laakiinse wax qof ku yidhi qof baa halkaa ka odhanaya soomaali baynu kala goonay wax noocaasa baynu nahay waxyaaba noocaasa war caqligaaga marka wax lagu sheego caqligaaga lala kaashada garaadkaaga iyo ragnimadaada la adeegsadaa waayo dadkii booyadaha hodan aadan alla iyo ciise warwaabii soomaaliyeed sharafta lahaa horta caawa waxaan ku dhaaranayaa dhaaraha ilaahay way farabadayn allah raxmaanka baan ku dhaaranayaa waxaan kaloo ku dhaaranayaa hablaha soomaaliyeed inta diibka muxuu hi ninkii dabcan halabuurka ahaaba waxay ku jirtay maasadiisii ama gabaygiisii inta diib ismarasiyo naxariista dunida iyo dumarkaan ku dhaartay waayo dumarka soomaalida waan jecelay maasha allah waanan ku dhaaranaya inta diib ismarasiyo naxariista dunida iyo dumarkaan ku dhaartay waayo dumarku way naxariis badan maasha allah way raganimo badan yihiin waayo dumarku tuug maaha naxariisna way leeyihiin haweenka soomaalida alla hadaayo waayo waa haweenkayga waa hooyooyinkay waa kuwan waa dumarkaygii maasha allah markaa walaalayaal mid dhaqano waxa uma joojinaya horta waxaa kasoo dega saldhigga dabcan berbera waxaa kasoo degayay maalmahan oo dhan diyaarado yar oo xunxuno habeenkiibay weliba soo dusaan oo habeenkii ayay kasoo degaan wari hadday habeenkii kasoo degaan cooshado yaryar bay waxay ka sameeyeen saldhig baana loo samaynayaa imaaraad wallahi baanay ku dhicin imaaraadku sharciga caalamiga ma jibin karaan maca maraykankooda soo raaca maca maraykankooda ma jibin karaan cooshado yarar bay ka sameeyaan oo mase habeenkii usoo dusaano dowladda soomaaliya waxaanay saxeexin oo madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo geesiga soomaalida wax aanu saxeexin wallahi inaanay soomaaliya ka hirgelayn axmed berbere sheegta ama boosaaso sheegta imaaraadkuna woogiyo wax allaala wixii corruption ahaan jiray iyo wixii la isdamarin jiray oo dhanna way dhammaadeen that game is over waqtigiina your time is over qabyaaladii qurunkii wuu isku dhammaaday taas waa qodob oo waxaan la socdaa silig yar ayay ku wareejiyeen walaalayaal oo ay meesha diyaaradahii meeshii dee airportkii beri inaga karaystay russia ay ku wareejiyeen kor baan uga baxaya haddaba waxaa timi bismillah iga yaraga halahada waxaa yimi qatar 8 diyaaradood oo afarna waaweyn tahay afarna yaryar tahay ayay dowladda qatar iyo turkigu ay inoogu deeqeen oo insha allahu tacaala markuu madaxweynuhu soo noqdo in yar kadib ka howlgali doono soomaaliya cadowgow jab oo dhimo baan kudhi waxaan lagu qori doonaa Somali Airline percentage ugu badanna dowladda Soomaaliya qaadan doonta waa guul iyo gobonimo oo halkaa waxay nooga soo kordhay galabta waxaan ka hadlayay wadooyinka inoo dhisayso dowladda qatar maasha allah wadooyinka isku xidhaya gobolada Soomaaliyeed oo dhan step by step boosaasi garow isku xidhayaan waxay isku xidhayaan muqdisho iyo afgooy isku xidhayaan waxay isku xidhayaan muqdisho iyo kismaayo isku xidhayaan muqdisho iyo hargeysa isku xidhayaan war dalkan hore u soconaya hore tareenka ninkii ka dhacay qabyaaladeysto aday ku taala waa Soomaali iyaduna isma jecla duniduna ma jecla laakiin se inta in yar oo aan waxba ahayn ay Soomaalinimada diidan dadka inta wanaagsan baa badan inta uma joojinayno waa cadowga intaas uu dabada u dhaqaan cadowga iyo maala yacni waxa kale oo walaalayaal aynu turkigu wuxuu noo dhisay xitaa ciidamadii bamboyda ee Soomaaliyeed imikana maalin kastaba bil kastaba dowladda turkigu waxay noo dhistaa diyaaradaha ayaa kaxaynaya horta farxad baan la kala boqobanaya iga raalahaada diyaaradaha waxa kaxaynaya baylooda Soomaaliyeed oo dhalinyaro oo macaa ilaa anaga naga daaya anaga waqtigayga waxba naga ciyaaray kuwa maafiyada oo turkigu tababaray ayaa kaxayn doona oo baylooda ka noqon doona waa kuwa maanta inoogu tababarayo Ankara iyo Istanbul kuwaas ayaa baylooda ka noqon doona diyaaradaha maanta 8 diyaaradood ee markuu madaxweynuhu kasta uu ku soo noqdo Muqdisho insha Allah taala Somali Airline waa 8 diyaaradood afarna way yar tahay afarna way weyn waxaana ka xayn doona
dhalinyaro Soomaaliyeed oo bayrooda alla hadaayo Allah karaamiyo amiirul muuminiinka Turkiga Erdogan ninka lahaa Tayyip Erdogan alla hadaayo Soomaaliyana soo noqonayso ma sha Allah guliyo gobonimo hore loo soconaya waxa kale oo walaalayaal guliyo gobonimo ah oo wasiirkeeni maaliyadda isagana waxa la bartaa ugu soo qortay wadaniinta Soomaaliyeed FIFA Dr. Bayle hore loo soconaya wasiirkeena maaliyadda ee lagu magacaabo Cabdiraxmaan Hebel Bayle Cabdiraxmaan Dr. Bayle waxa isaguna uu ka qayb galaya shir ka dhacaya meesha la yiraahdo Nairobi Kenya waxa ku wehelin doona wasiirkeena shirka wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga isaguna ku wehelin doona lacagtii Soomaaliya ayaa bartaa lagu soo daabacaya waxa iman doona wasiir ka socda dawladda Jarmalka oo lacag ma sha Allah waayo dabkii baxaya dab lagu qabsadaa war nimankan markay noqdeen non corrupt government oo transparent wax kasta noqdeen xitaa dawladihii baa u tartamayaba waa dalkeenu waa dahan yahay dalka Soomaaliya uu dahan yahay waxaanu laaynaa hore madax daacada oo xisaab xir soo celinaya oo dunida la xisaabtamaya oo soo jeeda oo xiniyo war raganimadu waa cabaarooda cagaha dhulku xijisad laakiin dad musuqmaasuq tahay oo waxa lagu dhiibo aad cunaysid oo corrupt tahay duniduna kuma aaminayso laakiin marka tahay qof waxa loo dhiibana xisaab celinka keenaya dalkiisana horumaraya qab iyo hanale dunidu ku soo dhiirinaysa waana lagu imanaya waxa imanaya wasiirka maaliyadda ayaa shirka ka soo qayb galaya ee wadanka la yiraahdo Germany sidoo kale waxa ka soo qayb galaya wasiirka lacagaha ama wasiirka maaliyadda ee dawladda Suudaan waxaana ku shiri doonaan insha Allah taala wadanka la yiraahdo Nairobi waxa kale oo walaal Soomaaliya guul iyo gobonimo oo inoo soo kordhay guul inoo soo kordhay Soomaaliya iyo xukuumadeena nabad iyo nolol oo laga qaadi doono cunaqabateynta hubka keliyana loo ogolaanayo dawladda Soomaaliyeed ayaa loo ogolaanaya hubka in iyada cunaqabateynta loo qaado waxaana lagu tijaabinayaa muddo ku siman 1 year ama hal sano ayaa lagu tijaabinayaa xukuumadda nabad iyo nolol in hubka hal sano haddii ay markaa ku guuleystaan oo hubkaas uu geli waayo gacanta beelaha ama reeraha ama qabiilka ama hogaamiye kooxeedada taana waan laga wada qaadayaa waa step by step Rome was not built one day step by step ku farxa oo ku bishaareysta dawladda Soomaaliya ee haatan ee nabad iyo nolol ee hogaamiyaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Xasan Cali Khayre iyo nabad iyo nolol waan ognahay qaar kale tashuusho fara badan hoosta way ka jiraan laakiin se guudkeenu ka eegana hogaanka sare oo eegana waxa laga qaadaya cunaqabateyntii hubka 1 year waana testi waana ku guuleysan doonaan insha Allah taala waxaanu ka dhacaya shirkaas cunaqabateynta hubka laga qaadi doona wadanka lahaada Kenya Nairobi waana isla sanadkan gudihiisa insha Allah taala marka ma sha Allah taasuna waxa weeyaan guulaha inoo soo kordhay inoo soo kordhay hadana ay nabad iyo nolol dalkuna hore u soconaya wax allaale al-shabaab haday tahay iyo reer waxaysta dawladda gacanta loo gelinaya maalin kastaba sanad kasta waxa soo baxa 5,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo saraakiil leh oo leh xidig leh oo ku xigeena leh oo tabla leh ayaa xukuumadda nabad iyo nolol ay tababartaa hadal yar iyo hawl badan qabyaaladii ugu dhan waa laga gudbay ma sha Allah haddii cunaqabateynta hubkan laga qaadana dalkeenu hore u soconaya waana xaqiiq lacagtii Soomaaliya iyo noodkii Soomaaliyana waxa uu tafaxaydan oo soo ma sha Allah taala soo hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah taala soo daabacaya wasiirkeena maaliyadda Dr. Bayle xukuumadda wada shaqeynaysa guul iyo gobonimo waxaan caawa soo galay oo farxad ah dawladda Soomaaliya oo loogu deeqay 8 diyaaradood oo 4 yar tahay 4na way waaweyn tahay oo ay ugu deeqeen dawladaha Qatar iyo Turkiga oo ballan qaaday inay Soomaaliya xukuumadda nabad iyo nolol ay barbar istaagaan diyaaradahaas 4 yar tahay 4na waaweyn tahay bayloodada kuruga kale ka shaqeynaya waxay noo soo tababaray waa dhalinyaro Soomaaliyeed rag iyo dumarba oo dawladda Turkiga noo soo tababartay waa guriga gobonimo kana cunafta waa dalkan Soomaaliyeed wuxuu u baahnaa madax daacada maantana waxa timi madax daacada waxaan haysanaa golden opportunity fursad dahabiya طبعا ما شاء الله فرصة dahabigana
waa laga faa'iideysanaya madaxweynihiinuna sidan wuxuu wadaa hadal yar iyo hawl badan looma joojinayo cantarabaqash iyo togatif meelaha ka hadla qabyaaladii waxa ka sheekeeya madaxweynahani dalka horumarkiisu ka shaqeynaya danta dalkana isagaa wada waanu garanayaa lamana yooyootamayo qabyaaladayste maamul goboleed kuwan bay dhaba ku shirayaana waxa weeyaan waa rafadkii u dambeeyey ee maamul goboleedada rafadkii u dambeeyey bartaa la aaday musabixina soo kaxaysta ilan waxani waa saaxiiba waa isku ciidane musabixi hadduu yahay cabdiweligaas hadduu yahay axmed madoobaha isna dhuxusha dhoofiye hadduu yahay ninka la yidhaahdo sharaf sakiin war waxani waa mafio the time of mafia is over timekii mafiyadu u dhammaaday xukuumadan waxaa la yidhahdaa nabad iyo nolol dareenka shacabkay ku timi insha allahu tacaala dalka madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo 4 sano dambaan ugu darnay insha allahu tacaala iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayr raba kadibna waxaa iman doontaa oo aniguna nu codayn doono anigu horta wax aan guurin oo gaboobin oo aan sal guurin iyo xil baan hayaa ummadda soomaaliyeed qaar baa meelaha niic ka soo shuba waxa noocaas waran wadani Soomaaliyeed baan wadaniyadu ma dhamaataba dalkayga iyo qarankayga iyo horumar hayta doontaan sheegta iyo mid kasta oo dalka horumarkiisa wada iyo dalkayga inuu diyaarada yeesho tarayna yeesho Allahu musta'aan uu kala digo beerihiisa iyo horumarkiisa laga shaqeeyo aniga taas ayaa facda laakiin reer hebel baa waxana dalka meeshan doonaan tagay 18 gobol ee Soomaaliya maalina waxaan u dalxiis tagayaa Kismaayo maalina waxaan dalxiis tagayaa Buaale maalina Baydhabo maalina Cadaado iyo Dhuusamareeb maalin kale waxaan u dalxiis tagayaa meesha la yiraahdo Garowe iyo Boosaaso taas ay iga badan dalkan maaliga leh Francisco marba meeshan doonaan aaday maalin Booramaan aadaya maalina Burcaan aadaya maalin kale waxaan aadaya Allahu musta'aan baya boqol baan aadaya ma sha Allah guliyo gobonimo taasaana ina afacda waxaan ku dalxiis doonaa dalalkeena quruxda badan iyo webiyadena ma sha Allah Juba iyo meesha la yiraahdo Shabeelle iyo dalalkeena san walaalayaal ku horumar ku gaarayna qabyaaladina waxbayna tarimayso guuliyo gobonimo maamul goboleedkuna sheekadoodu way dhamaatay haddii ay wax tarayaan Kismaayo isugu tageen umseeda shir baan ku qabanaynayo waxaasinimo oo waxa weeyaan waciyaad waxaan maartay maamul goboleedka waciyaalka yar oo kale ciyaalka hooyay waxana sameynaya aabahooda madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo hooyaduna waa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya bal waa kuwaas waxa ka soo saaray bal dalka waxa uu qabtay dadka waxa uu taray war iska rawaxa ama xukuumadda nabad iyo nolol ku daba fayla cabdiweligaas waanu bedelayna insha Allah tacaala waxa iman doona maamulka Puntland waxa hogaamin doona wadani xalaala oo Soomaaliyeed oo dawladda federaalka ku daba fayla sidoo kale Jubalandna waanu kala tuuri doona waa labada maanta ugu fayrisanba maxaa labadan u sitaaga labadani anaga la qabiila anaga waxaan wala dhaafay qarniga 12aad baa la maraya 2018 qabyaalad baa ku wareegaysan Axmed Madow iyo Cabdiweli Gaasow anaga la reero madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo anaga lugaha qabanana dadkayna arkay waxaanu dileena dalka iyo dadweynaha dambi kii ka galayo degdeg oo ha noolaan balse dadka iyo dadweynaha dambi kii ka galayo degdeg oo ha noolaan dibindaabiye kaan wadin daacada ha waaree daayaanu leenahay balse labada daamood kow kala dusaaye ee dawladii isku daraya shacabkow dadka isku soo qarin Axmed Madow waxaan ku leenahay dadka isku soo qarin Cabdiweli Gaasow waxaan ku leenahay dadka isku soo qarin idinka aba ugu horeynayba ha Sheekh Shariif iyo Musabix iyo Xaafiya keenayba idinka maanta idinkoo balina qabyaalaystayaal qurunaatiin oo maalayacnaytiin idinkoo sita magaca daarood baan ahayd dawladda fashilanaysaan ujeedadiinu waxa weeyaan qabyaalad warada qabyaalad ma baahin qarannimo aan u baahanahay anagoo reer qoyay baa u baahan anagoo reer Burca baa u baahan reer Berbera u baahan reer Laascaanood baa u baahan reer Ceeriga baa u baahan qabiilna ma kala lihin dhalinyarada Soomaaliyeed waan aasnay qabyaalad iyo qurun laakiin idinku waxa isleedihiin qabyaalad ku soo gabada oo hal yiraahdo ilan xaaf iyo dib u fadhiista iyo waarayo iyo Sharaf Sakiin anaga daarooda dawladda dubinayna de qarankeena nagama dubinaysaan qaranka Soomaaliyeed guuliyo gobonimo anagoo dhalinyarada ano ku hadlay afka dhalinyarada Soomaaliyeed gabigood oo dhanba iyo magaca ummadda Soomaaliyeed iyo qabiil kasta waxaan leenahay madaxweynaha ha guuleysto ra'iisul wasaaruhu ha guuleysto danta qaranka ka shaqeynayaan Cabdiweli Gaas qaranka danta qaranka ma shaqeynaysid Axmed Madow kama shaqeynaysid hoosaasis baad wadaa qabyaaladaystayaal baatiin idinka quruna madaxweynuhu qabyaalaysta ma idinma kala jeclin anagu waxaan jecelahay waanu aasnay qabyaalad blog ummadda Soomaaliyeed oo walaalo wadada isku mid ah
guuliyo gobonimo saasayna anfacda dhalinyaro la dagaalama oo ku mudaaraada markay kismaayeen ku yimaadaan iyo meesha aad garowe iyagoo leh madaxweynaha anaga Allah haybo anaga dumin maysaan waxbana waana rafadkii ugu dambeeyay dalkuna hore u soconaya horumarka iyo dib socodkuna meel ma wada galaan guuliyo gobonimo walaalayaal barnaamijka dabcan waxaan rabaa inaan qodobada ugu door koron idin soo gabagabeeyo horta meesha la aad barbaryahan oo dhan waxa ka soo degayay habeenkii oo akhbaarta lagu siinaya diyaaradaha habeenka ka soo degaya siliga ruuxna waa lagu wareejiyay saldhig waxa lahadan laga sameyn doono insha Allah taala kumana dhacaan oo wax black market ilan cid u seexday ma jirtee kuma dhacaan berbera in ay imaaraadna yimaado way dawladda Soomaaliya uma seexin taasay ka baqanayaan marka waa wax black market Allah musta'an wax horumarna ma sameynayaan adduunyadana waxa jira international law wax la yiraahdo qodobka kale aan soo galnay waxa weeyaan 8 diyaaradood oo dawladda Soomaaliya loogu deeqay isla caawaba ma sha Allah waa guuliyo gobonimo diyaaradaha afarna way yar tahay afarna way weyn tahay waxaan lagu qori doonaa Somali Airline waxaana insha Allah taala diyaaradaha crew iyo bayloodaba ka noqon doona dhalinyarada Soomaaliyeed oo cid kasta bale guuliyo gobonimo oo wax ku soo bartay dawladaha Turkiga ama dunida dacaladeeda ma sha Allah waxa kale oo Turkigu noo dhisay ciidamadii bamboyda ma sha Allah guuliyo gobonimo iyo ciidamadii militariga ahaydba sidoo kale waxa iyaguna Nairobi ka tagay oo Nairobi tagay wasiirkeena maaliyadda ama wasiirka lacagta hadba soo taqaanaan oo isaguna dabcan lacagtii Soomaaliyeedna la soo daabacayo oo insha Allah taala bilahan nagu soo socda ay lacagtii Soomaaliya ee Muqdisho ma doonto waxa kale oo iman doono barta kale oo kulmi doona wasiirka socda dawladda Jarmalka oo wasiirka dhaqaalaha ah oo isaguna lacag Soomaali ugu deeqay waayo dabkii baxaya dab lagu qabsada waxaan kale la soconay dawladda Ireland oo iyaduna dhaqaalo ugu deeqday dawladdeena Soomaaliya ma sha Allah waa guul iyo gobonimo waxa wasiirkeena maaliyadda ku wehelinay safarka wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga waa guul iyo gobonimo waxa kale oo guul iyo gobonimo Soomaaliya ama xukuumadda oo laga qaadayo cunuqabateynta hubka oo waliba kaliya loo ogol yahay dawladdeena Soomaaliya muddo ku siman hal sano oo lagu tijaabinayo insha Allah taala itixaankan way ka bixi doontaa hawadii Soomaaliya dabcan ee Soomaaliya ay gacanta ugu jirtaa waa guul iyo gobonimo FIFA nabad iyo nolol dalku ha guuleysto insha Allah taala Soomaali baynu leenahay waan ku faraxsanahay haweenka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel adduunyada dacalada ka joogtaanba Soomaaliya ha noolaato Djibouti ha noolaato Turkiguna ha noolaado Qatarna ha noolaato wixii Soomaaliya wax tarayo dhanna ha noolaato ummadda Soomaaliyeedna gees ha noolaadaan guuliyo gobonimo ma sha Allah xumaan waruhuna waa lagu sheeqayaa wax kasta oo xumaanta waxa ka adag wanaaga bil Ramadaan bay noo soo galaysaa guuliyo gobonimo in soo duceyno aad baan salaamaya wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh